silsiladda waxaan kaga warmi doonaa kuna sharxi doona kitaab ka hadlaya lacagta oo uu qoray Robert Kiyosaki oo hantidiisa lagu qiyaaso $1 milyan. waxaana lagu tiriyaa kutubta ugu wanaagsan ee ka hadasha lacagta, sidoo kalena ah kutubta ugu iibsiga badan. kitaabkan wuxuu wax badan ka bedeli doonaa fahamka lacagta. waxaad u arki doontaa lacagta dhinac ka duwan dhinacaad hadda u aragto. waxaad u arki doontaa lacagta si lamid ah siday u arkaan dadka maalqabeenka ah ee Ilaahay siiyey. haddii aad u aragto lacagta sidoodoo kalena una fikirto sidoodoo kalena, waxaad noqonaysaa taajir sidoodoo kale. waxaan hubaa in wax badan ka bedeli doono dakhliga lacageed ee kusoo gala si aan hore loo arag. qaybta koowaad ee sharxidda kitaabka Aaba Qariya Aaba Faqiire iyo qoraaga buugga qoray Robert Kiyosaki. arrinta ugu muhiimsan diyaarso koob shaah oo dhaka jabiya ah ama cabitaanka kale aad jeceshahay inoo bilowga video. assalaamu calaykum, waxaan kugu soo dhaweynaynaa channelka xaqiiqo sugan. waxaa kula jooga Cabdifataax Maxamed. haddii aad ku cusub tahay channelka, si kooban waxaan soo gudbinaa mawduucyo tayo leh oo aad u badan, sida warfaynta buugaagta, qisooyinka, iyo weliba intaasun maahay qaar kale oo badan heli doontaan oo badan oo aad u badan. weliba intaasun maahay aad ka faa'iidi doontaan. haddaba haddii aad doonaysa inaad mawduucyada aad ka faa'iidaysato, fadlan noo saar subscribe ama follow. waxaan ku bilaabi doonaa qoraaga buugga Robert Kiyosaki oo dhac cajiib ah oo uu isku barbar dhigayo labada fikir ee kala aaminsan yihiin dadka taajiriinta ah iyo dadka faqiiriinta ah. oo marka la leeyahay dadka taajiriinta iyo dadka faqiiriinta ah, waxay kugu soo dhacaya dadka lacagta leh iyo dadka shiidka ah. laakiinse way ka duwan tahay arrintaasi, oo wuxuu sheegayaa qoraaga buugga qoray in farqiga u dhexeeya taajiriinta iyo faqiiriinta ay tahay fikirka. oo markaa wuxuu leeyahay waxaa jira laba fikir oo kala duwan, fikir taajir ah iyo fikir faqiir ah. taasoo uu leeyahay fikirka taajiriinta ay u fikiraan way ka duwan tahay fikirka ay u fikiraan dadka faqiiriinta, isagoo sheegay inaanay ku xidhnayn lacagta aad haysato ama aad leh. qof haysta $1 oo keliya uu noqdo qof taajir ah, halka qof $10,000 uu noqdo qof faqiir ah, iyadoo arrintaasi u sabab tahay fikirkooda. haddaba si aad u fahanto, qoraaga buug waxa uu soo qaadanayaa qiso aaba taajir ah iyo aaba faqiir ah. waxa uu ku bilaabayaa waxaa jiri jiray waqtiyada ka mid ah, waxaan dhashaa anigoo leh laba aabe, aaba faqiir iyo aaba qaniya. labadooda mid ka mid ah waa mid waxbarasho heer sare ka gaadhay, caqli badan leh, haystana shahaado PhD ah. aabbaha kale muu dhammaysan fasalkiisa 8aad. labadoodu wax shaqeeya si adag. waxay ahayd mid kasta oo ka mid ah labada aabe waa mid ku guulaystay majaalkiisa. dhammaantood waxay u shaqaynayeen si wanaagsan, waxaana soo geli jiray dakhli iyo lacag sare. haddaba mid ka mid ah waxa uu la xarbiyey noloshiisa, halka kale uu yahay mid ka mid ah maalqabeennada ugu maalqabaysan magaalada Hawaii. haddaba isagoo hadalkaasi wada, waxa uu yidhi mid ka mid ah ayaa dhintay isagoo uga tegay qoyskiisa hanti fara badan iyo goobo khayriya oo dan guud ah iyo meelo lagu cibaadaysto, oo halka kalena uga tegay qoyskiisa deymo badan. waxa uu leeyahay farqiga cajiibka ee u dhexeeya labada aabe. horta labada aabeba waxay ka siman yihiin muhiimadda waxbarashada, laakiin midka kale waxa uu nagu adkeynayay waxbarashada akaademiga ah oo keliya, halka kale nagu adkeeyey waxbarashada nolosha oo la socoto waxbarashada akaademiga ah. inkastoo waxaan kuu sheegi doonaa waxa looga jeedo waxbarashada nolosha. dabcan waxa uu leeyahay arrinta jahwareerka ahi, labada aabe mid kastoo ka mid ahi waxa uu isiinayay talooyin, laakiin ma garanayo midaan maqlo iyo farqiga u dhexeeya labada. haddaba farqiga weyn ee cabka u dhexeeya ayaa mid ka mid ayaa odhan jiray si wanaagsan wax u baro si aad u hesho shirkad fiican oo aad u shaqayso, halka kale odhan jiray si fiican wax u baro si aad u hesho shirka weyn oo aad iibsato. mid ka mid ayaa odhan jiray lacagtaada u isticmaal dhinaca ammaanka ah oo khatarta ha u wereerin, halka kale odhan jiray baro sida khatarta loo maareeyo. haddaba Robert Kiyosaki oo ah ninka buugga qoray iyo saaxiibkii Mike waxay u tegeen aabbaha Robert Kiyosaki oo jaraa'id akhriya, iyagoo da'doodu yaryarayd oo markaa ah 9 jir. haddaba markii ay u tegeen aabihii, waxay weydiiyeen sida lacag loo sameeyo ama loo samayn karo uuna tacbi karaa. aabihii waxa uu sheegay wiilka yar ee la socda aabihii uu yaqaano oo uu bari doono sida lacagta loo tabcado ee loo shaqeeyo. haddaba aabihii Mike waxa uu lahaa 2 meheeradood iyo hodheel yar. Robert iyo Mike waxay u tegeen Mike aabihiis si ay u soo bartaan sida lacag loo sameeyo. labadii wiil waxa ay la wadaageen arrinta ay u socdeen. kadibna waxa uu ku yidhi waxaad iigu timaadaan xafiiskayga wiiga maalmaha fasaxa ah. xafiiska yar oo meherada ku dhex yaalay. kadib markii ay u tegeen, waxa uu sheegay inaanu beri doonin sida caadiga ah ee wax loo baro ee hadal iyo sharaxaad ah. waxaan casharada idinku barayaa sida nolosha dhabta ugu barayso. noloshu waxay kugu bartaa iyadoo aamusan. markaa diyaar ma u tihiin si aad u barataan inaad maalmaha fasaxa aad la shaqaysaan oo hubeerka ka shaqaysaan, aanad qaadataan 10 senti bishii? diyaar ayaan u nahay, ayay yidhaahdeen.
haddana markii ay muddo 2 bilood ah u shaqaynayeen ayaa waxa weydiiyey aabbaha robot ayaa wuxuu yidhi muxuu idin baray Mike aabihii waxay yidhaahdeen waxba nama barin hudheelka ayaan wiiga maalmaha asxaa uga shaqaynaa 10 senti ayuuna siiyaa ayaa uu ku yidhi ninkaa waxba idinma baraya ciyaalnimada ka faa'iidaysanaya 10 senti wax lagu shaqeeya maaha ama haydin kordhiyo lacag ama haddii kale iskaga taga waxba idinma baraya kadib markii wiigii dambe gaadhay ayaa waxay u yimaadeen aabbaha Mike kadibna waxay ku yidhaahdeen waxba nama bartid 10 senti annagu kuma shaqayn karno adigana kumana aragno maalintii baa nugu kaa dambe kadibna wuxuu ugu jawaabay waana halka dulucda sheekadu ku socotee 2 jeer ayaad ii timaadeen marna shaqada ayaad raadinayseen marna mushahar in lagu kordhiyo kadib ayuu yidhi casharkaan ku barayay waxa uu ahaa inay shaqada iyo mushaharku ku gaadhsiinayn taajirnimo waxa uu sii raaciyey nasiib ayaad leedahay waayo dhibaatada shaqaalanimada ayaad ogaatay adigoo ay da'daadu yar tahay oo keliya ay tahay 9 jir haddaba dulucdu waxay tahay ka Soomaali ahaan shaqadu waa muhiim laakiin shaqadu yaanay hadaf ka noqon inta aad nooshahay fikir iyo khibrad ka qaado kadibna ganacsi iyo hawl adiga ku gaar ku samayso intaas ayuu ku eegayay fiidiyowgayna maanta fadlan haddaad ka heshay noo saar subscribe ama follow like na nagu qabo si dad badan uga faa'iidaystaan aad baan